السلام عليكم ماني وناكسن مال وليبا ee adduunyada ka joogto madowga cadaanta dhirirka gaabnida buurnaanta dhuubnaanta adkaanta jiljileeca iyo wax waliba oo muujiya kala duwanaan waxay qiimo u yeelaan waxa ay ka duwan yihiin ama qiimo tiraan oo marka si wanaagsan oo niyadsan loo adeegsado waxbay qurxiyaan laakiin marka dhammaan sifooyinka si qaldan loo adeegsadana waxay abuuraan isnacayb iyo kala tag kala duwanaanshiyaha midna waa mid ay dadku iyaga doorteen inay uga duwanaadaan dadka kale sida inay yihiin dhaqan iyaga u gaar ah ama mid loo dooray sida in gumeyste dhaqan ama afkooda aanan ahayn u keenay oo ay weli heestaan ama xitaa mid lagu qasbay qaabkay doontaba ha ahaatee kala duwanaanshiyaha waa waxa qurxiya nolosha aadanaha amaba si kale aan u dhahe waaba waxa dadka dareensiiya inaysan dunida kaligood ku ahayn kala duwanaanta ama midab ama aragti ama caqiido ama meesha lagu nool yahay waxay door weyn ka ciyaartaa habka qofku u nool yahay iyo weliba sida uu u arko nolosha sidaas darteed bay Soomaalidu u tiraahdaa adiga ceeb u taqaano nin bay amalkiisa yihiin oo marka kaliya aad taqaano hal dhaqan oo aad ku dhex nooshahay bulsho aad meel waliba isaga egtihiin af diin dhaqan midab fakar wax kastoo kale ee lagu kala duwanaado waa wax aan saameyn badnayn laakiin waa sidee marka aad la nooshahay ummad aad wax waliba ku kala duwan tihiin noloshayda laba meelood meel waxaan la qaatay ama aan la noolaaday oo aan weli la noolahay dad aan waxyaabo badan ku kala duwannahay waxyaabaha aan kala duwanaanshiyaha ka bartayna waxaa ka mid ah inaad marka koowaad isla yaabaysaan dadka aad meel wada joogtaan kadibna qofka kale si fudud ayuu u aqbalayaa taasoo ka dhigan inaad qofka iyo adiga aad isweydaarsateen waxyaabihii aad ku kala duwaneedeen hadhowna qofkaas haddii uu la kulmo qof aad isku meel ka soo jeedaan way u fududaanaysaa inuu aqoonsado ummad waliba waxay leedahay wax ay ummadaha kale uga duwan tahay ha ahaadaan af dhaqan diin dhul calan iyo astaan haddii aan kala duwanaanshiyo jiri lahayn qiyaas adiga sidee bay nolosha ahaan lahayd haddii dadka oo dhani ay wada madow ahaan lahaayeen ama wada cadaan ahaan lahaayeen ama wada dad dhaadheer ama wada dhukuciye ah ahaan lahaayeen ama dad wada muslin ah ama dad wada gaala ah ahaan lahaayeen u fiirso ilaahay wuu awoodi karay inuu ummad keli ah naga dhigo laakiin haddana marna kama suulin inaan kala duwannahay kala duwanaanta ma waxbaa lagu dhisaa mise waxbaa lagu burburiyaa hadba waa sida loo arko marka aad u fiirsato dhibka ugu weyn ee maanta dunida ka taagan waa uun mid ku salaysan kala duwanaan oo markaad u fiirsato dunidu waxay u qaybsan tahay qaar leh waana la midabta kooraya iyo qaar raba in dhaqankooda la qaato ogowna midabta koorka kaliya ma ahan mid ku dhisan midab ee wax waliba ee dadku ku kala duwan yihiin ayaa soo gala annaga ka Soomaali ahaan aad baan ugu dheeraynaa dhanka midabta koorka aan diidno ama aan yeelno iska daa ummad kale ee annaga ayaa aqbali weynay kuwa naga midka ah ee naga afka duwan ama naga reerka duwan wixii aan ka dhaxalnayna uma baahnin inaan halkan kaga faaloono marka kala duwanaanshiyaha wax lagu dhiso maxaa dhacaya dalal badan oo dunida ka mid ah maanta waxay ku dhisan yihiin kala duwanaan noocay doontaba ha ahaatee waxay dadku u sameeyeen magac mideeya si kasta oo ay kala duwan yihiin marka ay danta guud joogto waa ummad qura waxay aqbaleen dadka ka duwan iyaga waxay siiyeen fursad waxayna taas sababtay inay asaagood ka hormaraan ogow dunidu waxay ku dhisan tahay kala duwanaan ugu dambeyn kala duwanaanshiyaha dhankeeda san iyo keeda xunba waxbay kuu soo kordhisaa kaana bartaa nolosha aadanaha iyo sida ay u dhaqmaan ama ay u nool yihiin ama xitaa ay u fakiraan haddii aad aragto qofkaa aragti ama muuqaal duwan ha ku fogeyn taas laga yaabay inuu noqdo qofkii noloshaada ku qurxin lahaa waxyaabaha aragti ahaan ama dhaqan ahaan uu aaminsan yahay qofkaas ixtiraam qofkii aad wax ku kala duwanaataan ka dhagayso wuxuu aragti qabo ka sug sida uu dhaqankiisa kuugu muujiyo ka baro wixii macquul ah ka qaado wixii ku anfacaya ugana mahadceli inuu qofkaas noloshaada wax uun ku soo kordhiyey markaad rabto inaad quruxda ay kala duwanaanshiyaha leedahay aragto keliya eeg dhulka iyo noolaha dul saaran sida uu ilaahay u abuuray waxaan rajaynayaa inaan qofna ku colaadin doonin sida uu u egyahay ama dhulka uu ka soo jeedo waayo cidna ma dooran halka ay ku dhalatay iyo cidda ay ka dhalatayba waxaan ilaabay adigana xasuusi wadna ku mahadsan tahay inaad intaan ila soo gaartay waxaana kuu rajaynayaa waqti aad u qurux badan